nabiga sallallahu alayhi wasallam halkii baa laga duuliyay oo aadeen samada u sokaysa ayuu albaabkeeda jibriil gargaraacay markaasaa lagu yiri waa ayo markaasuu yiri waa jibriil markaasay ku dhaheen man macaka yaa kula socda markaasuu yiri maxamed sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed ayaa ila socda markaasay ku dhaheen ma la soo diray haa waa la soo diray albaabkii bay ka fureen halkii buu fuulay wuxuu ugu tagay abul bashar qofkii aan ka soo farcanay aadam calayhi salaam nabiyullaahi aadam ayuu halkii ugu tagay markaasuu salaamuu ku yidhi walad saalixa ayaa tahay oo risaaladiisana uu ku rumeeyey marka nabi aadam muxuu ahaa waa nin aad u qurux badan buu yidhi nabigeena sallallahu alayhi wasallam xagga midigtana waxaa ka ah nuur iyo iftiin xagga bidixdana sawaad baa ka ah xagga midigta waxaa ka ah awlaadiisa inta wanaagsan oo jannada galaysa uu ku farxi markuu fiiriyo xagga bidixdana waxaa ka ah dadkii dhul daraystay awlaadiisa ka midka ahaa ee naarta galahayay markaasuu naxayaa hadduu xaggan uu fiiriyo halkii bay kaga tageen oo waxay u gudbeen samadii labaad waxay ugu tageen laba wiil oo dhalinyaro ah nabiyullaahi ciisa iyo nabiyullaahi yaxya ayay ugu tageen halkii bay ku salaameen waana kasii tageen waqti ma jireen nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu u degdegsanayaa inuu aado ilaahi subxaanahu wa tacaala la kulankiisa meel buu u socdaa oo qalbigiisu ku xidhan yahay way ka tageen oo samadii saddexaad ayay tageen samadii saddexaad waxay ugu tageen ninka ugu qurux badnaa ee quruxda adduunka ilaahay abuuray barkeed la siiyey nabiyullaahi yuusuf ayay ugu tageen calayhi salaam halkii bay ku salaameen way ka sii tageen samada afraad bay tageen waxay ugu tageen nabiyullaahi idriis calayhi salaam way salaameen halkii bay ka tageen samada shanaad bay tageen waxay ugu tageen oy ku salaameen nabiyullaahi haaruun calayhi salaam way ka tageen samada lixaad ayay tageen nabiyullaahi muusa ayay halkaa ku salaameen sala allahu calayhi wasalam marka nabiyullaahi muusa uu salaamay buu ku yidhi buu ilmeeyey wuxuu yidhi maxaa kaa oohinaya nabiyullaahi muusa ayaa ilmeeyey maxaa kaa oohinayuu ku yidhi wuxuu yidhi waxaa la i tusay ummad aad u badan oo jannada galaysa markaasaan ummadaydi moodo markaasaa la igu yidhi waa ummadda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaan jeclaystay inay ummaddayda noqoto halkii bay kaga tageen nabiyullaahi muusa calayhi salaam samadii toddobaad bay tageen waxay u tageen geedda weyn ee sidratulmuntaha la dhaho iyo guriga baytulmacmuurka la dhahay malaa'igtu ku tukato sidaan annaka xaramka maka u dawaafno een ugu tukanno samada toddobada samo korkeed waxaa ku yaalla guri saasoo kale ay malaa'igtu u gasho oy ku tukato oo nabi sallallahu alayhi wasallam uu yidhi halkii maalinba waxaa soo gasha 70,000 malakin 70,000 oo malag baa dawaafa kumana soo noqdaan malaa'ig kale ayaa imaata halkaas geedda sidratulmuntaha agteeda wuxuu ku arkay nabiyullaahi ibraahim oo nabiga aabihii sallallahu alayhi wasallam awowgii abtirkiisa meeshuu ku dhammaado abulbashar athaani baa la dhahaa dadka badi asaga ayay ku abtirsadaan nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam asagoo oo ku tiirsan sidratulmuntaha ayuu u tegey halkaas ayuu ku salaamay aabihii sallallahu alayhi wasallam markii uu nabiyullaahi ibraahim halkaa ku salaamay jibriil ayaa halkaa kaga hadhay calayhi salaam wuxuu ku yidhi nebi maxamedow anugu halkan ma dhaafo qof ka yimid hoos halkan ma dhaafo adiga unbaa laguu idmay inaad halkan dhaaftee adigu wuxuu ku yidhi kac ilaahay subxaanahu watacaala baa kuu idmay nabiga sala allahu calayhi wasalam halkaa ayuu kor u sii fuulo uu u tegey uu arkay jannaatulma'waa jannadii hoyga iyo gurigii nabiga sala allahu calayhi wasalam gurigiisii jannada jannaatulfirdows alaclaa baa halkaa ku taalla kadib buu sii gudbay ilaahay subxaanahu watacaala ayuu u tegey nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi nuur iyo iftiin ayaan arkay halkaasaa lagala hadlay nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa ilaahay salaamay ataxiyaatu lilaah wasalawaatu lilaah wadayibaatu lilaah intaas ayuu yidhi markuu nabiga sala allahu calayhi wasalam uu intaa yidhi ayaa ilaahayna subxaanahu watacaala uu u jawaabuu ku yidhi assalaamu calayka ayuha annabiyu waraxmatullaahi wabarakaatuh halkaas ayaa nabiga sharaftii ugu dambaysay oo qof bini aadana uunan gaadhin ayuu ku gaadhay qof halkaa intii la geeyey lagala hadlay oo nabiyullaahi maxamed ahayn ma jiro qof ka gudbay sidratulmuntaha oo halkaa u gudbay oo nabiyullaahi maxamed ahayna ma jiro salawaatullaahi wasalaamuhu calayh wixii muruga haysay iyo wixii dhibaata adduunka ku gaadhayba halkaa ayay kaga soo dhaqantay gurigiisii jannada ayaa halkaa lagu soo tusay ilaahay subxaanahu watacaala ayuu halkaa kula soo hadlay halkaasaa lagu soo farad yeelo loogu soo dhiibay salaadaha
ayaa lagu soo faral yeelay oo halkaa loogu soo dhiibay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi wuu soo noqday oo halkii buu ku soo maray jibriil oo suuradiisii oo aad u qurux badan ayuu halkaa ku soo maray ilaahay subxaanahu wa tacaala mowqifka asagoo inoo sifaynaya ayaa aayado qur'aan uu kaga hadlou yidhi wannajmi idaa hawaa maa dalla saaxibukum wamaa gawaa wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa callamahu shadiidu alquwaa duu miratin fastawaa wahuwa bilufuqi alaclaa ثuma danaa fatadallaa fakaana qaaba qawsayni aw adnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala halkaas ayuu inoogu sheegay inuu jibriil oo aad u qurux badan uu halkaa ku arkay oo suuradiisii ku taallo nabi sal allahu alay wasallam inuu jannatulma'wa halkaa ku soo arkay jannadii hooyga nabiga sal allahu alay wasallam laabtiisa inayna marnaba beeninin wixii uu halkaa ku arkay mana uuna ilduufin mana uuna beeninin ilaahay baa xaqa iyo iimaanka ku sugay markii horeba meesha uu shaydaanku kala xidhiidhaya ayaa laga bixiyo mid xaqa beeniya ama xaqa ka shakiyaba ma uusan ahayn sala allahu calayhi wasalam markaasaa uu hoos u soo degay uu soo maray muxuu ahaa nebiyullaahi ibraahiim iyo jibriil buu halkaa ku soo maray hoos buu u soo degayoo nebiyullaahi muusa buu wuxuu ugu yimid samadii lixaad markaasuu ku yidhi maxaad wadataa meeqaa lagugu soo faral yeelay wuxuu yidhi salaadihii baa la igu soo faral yeelo 50 salaadood baa la ii soo dhiibay markaasuu nabi muuse sala allahu calayhi wasalam ilaahay ajir badan ha ka siiyo ummaddeenna wuxuu ku yidhi ummaddaada ma awoodi doonto 50 salaadood dib u noqo ilaahay subxaanahu wa tacaala takhfiif ka bari sidii buu nabiyullaahi maxamed ku noqday sala allahu calayhi wasalam uu bartiisa ku noqdo yidhi ilaahayow ummaddayda way ku culus tahay 50 salaadeeda iiga khafiifi 45 baa looga soo dhigay waa soo degay nebi muuse uu yimid ku noquu yidhi wuu noqday 5 kalaa laga gooyey waxaa laga soo dhigay 40 salaadood nabi muuse uu yimid waa la celiyo wuu noqday haddana muxuu ahaa 5 kalaa laga gooyey ilaa laga soo reebay 5 salaadood nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu 10 mar uu dib u noqday ayaa 5 salaadood laga soo reebay nabiyullaahi muuse buu u yimid markaa ugu dambaysay 5 salaadood uu wato ayuu wuxuu ku guday nabiyullaahi ibraahiim uu salaamay uu yidhi hadda waan sii degayaayo ma soo laabanayo nabiyullaahi ibraahiim wuxuu yidhi ummaddaada igu salaan oo waxaad iga gaadhsiisaa jannadu inay tahay ardu khasba dhul beereed aad u jilicsan oo aad u abuur fuucan oo wixii laga abuurana ay durba soo baxahayaan waxaana lagu abuurtaa buu yidhi subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar laa ilaaha ila allah intaa haddaad badsato maalin kasta jannada ayaad geeda waaweyn iyo beero ka abuuranaysaa nabiyullaahi ibraahiim intuu ina soo salaamay ayuu weliba fariintaa wanaagsan inooga soo warramay jannaduu yidhi dhulkeedu waa qiicaan waa dhul biyo mareen oo jilicsan waxaa lagu abuurtaa tawxiidka iyo ilaahay nasahnaantiisa subxaana allah ilaahay baa ceebla alxamdu lilah ilaahay baa mahadsan laa ilaaha ila allah ilaah kale ma jira ilaahay mooyeene allahu akbar ilaahay baa weyn afartaa haddaad ku celceliso jannada ayaad beero badan ka beeranaysaa sidii ayuu nabiga ku soo tegay sala allahu calayhi wasalam nabiyullaahi muuse ayuu u yimid wuxuu ku yidhi 5 salaadood anaa ku rafaado ummaddayda ay qaadan weyday nebi maxamedow maad ku noqotid mayuu yidhi ilaahay waan ka xishoonhayaa kuma noqon hayo sidii ayuu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu ku soo degay oo baytulmaqdis uu ugu soo noqday oo haddana uu maka ugu noqday salaada fajar xilligeeda